Director General, ladies and gentlemen, Somalia is taking its accession to the World Trade Organization very seriously. As we seek to join the multilateral trading system and build back better. warbixin yarkaas iyo marka shirkii noo soo gabagaboobay oo aanu ka qayb galnay wuxuu ahaa shir ay ka qayb galayeen wasaaradaha ganacsiga qaaradda Afrika iyo xogayaha guud loo doortay ururka ganacsiga adduunka WTO World Trade Organization Dr. Ngozi Okonjo shirkaasna inta badan waxay ahayd warbixintii iyo kelmadihii soo dhaweynta loo jeedinayo xogayaha guud ee cusub ee WTO-ga waxa barbar socday marka fikrad isweydaarsi ku saabsan qaabka ugu habboon waxa weeye loo horumarin karo ganacsiga Afrika iyo warshadeynta runtii waxaa la socotaa in Soomaaliyana anagu aanu hadda raadinayno ama codsi noogu maqan yahay inaanu xubin ka noqono ururkaas ganacsiga adduunka warbixin baanu ka bixinay oo aanu kaga hadlayno faahfaahinayno halka qaabka meesha uu noo marayo codsigii waxyaabihiina laga soo dalbay jawaabihii aanu ka bixinay iyo waxay noo harsanba sidoo kale ajenda kamid ajendayalka maanta lagaga hadlayay kulankaasna waxaa kaloo kamid ahaa tala isweydaarsi iyo xog ururin laga ururinay marka wasaaradaha ganacsiga ee dawladda Afrika ee shirkaas maanta goobjoogka ah anaguna Soomaaliya aanu kamid ahayn wixii fikrado ku saabsan qaabka horumarinta kalluumaysiga iyo ka ganacsiga kalluunka ee wadamada qaaradda Afrika iyo caalamka intiisa kale waxaa jiri doona shirkiis oo ah shirkii 12aad oo hay'adda ganacsiga adduunka WTO lagaga hadlayo arrimaha ka ganacsiga ee kalluumaysiga marka qaabkan u aragno ay dawlad walba iyo sida wax ay u baahan tahay in loo horumariyo arrimahaas waxa barbar socday arrimaha beeraha iyo waxa kale oo lagaga hadlayo oo fikradana aanu ka dhiibanay inta qaabkii iyo waxa way iyo saameyntii oo ku reebay cudurkii COVID-19 oo ilaa dirtaan jira saameyntii ku yeeshay ganacsiga iyo wax soo saarka qaaradda Afrika gabagabadiina waxa way waa inta ugu badan waxa way waxa la isku baraarujinayo marka insha Allah in wadamada Afrika xubnaha ka ururkaas ganacsiga adduunka marka in ay cod midaysan inay yeeshaan si markaas waxa way ay uga faa'iideystaan waxyaabo barnaamijyada lagu horumarinayo dhanka warshadaha ganacsiga beeraha iyo kalluumaysiga oo hoggaanka u ahay ururkaas ganacsiga adduunka marka runtii shirkii si wanaagsan buu noogu soo dhamaaday waxaana intaynan ka qayb gashay wasaaradihii goobjooga ka ahaa ee dawladaha Afrikaanka xubnaha ka World Trade Organization-ka iyo safiiradoodii iyo wasiiradii inta ka qayb gashay runtii ugu dambeyntii waxaan ugu hambalyeynay Dr. Ngozi Okonjo doorashadaas iyo magacaabistaas doorashadaas loo doortay inay noqoto waxa way Director General-ka ururka ganacsiga adduunka WTO waana markii ugu horeysay qof haweeney ah ay qaaradda Afrika ka soo jeeday ay xilkaas ay qabato marka shirkaas guul iyo safgarad buu noogu soo dhamaado ma santahay